والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan, ilaahay baan waaga inoo bariyey. kelmado kooban baan rabaa insha allahu tacaala naftayda inaan xusuusiyo, walaalaha muslimiinta ahna inaan la wadaago, ama inaan naftayda u sheego walaalaha muslimiinta ana xusuusiyo. sidaad og tihiin waqti adag baa lagu jiraa oo qofka muslimka ahi waqti adag buu ku jiraa, ama duniduba fitanka iyo fasahaadka iyo xanuunada iyo mashaakilaadka iyo maxaanku idhaahdaa waxa jira waa ka warhaysaa. adduunyadan ilaahay baa iska leh, adduunyadan ilaahay baa iska leh. bani aadamka qaar ma oga ilaahay adduunkan inuu leeyahay oo ka taliyo maamulo oo sida uu doono isagu u dhigo. waa kuwa iimaanka aan lahayn. inta mu'miniinta ahi qalbigooday ku qoranto way og yihiin adduunkan ilaahay inuu leeyahay oo isagu ka taliyo oo isagu maamulo. facaalun limaa yuriid, wuxuu rabo alla sameeya subxaanahu wa tacaala. cidduu rabuu dilaa, cidduu rabuu nooleeyaa, cidduu rabuu qani ka dhigaa, cidduu rabuu faqiir ka dhigaa, cidda uu rabuu risiqa u waasiciyaa, cidduu rabuu risiqa ku cidhiidhiyaa. facaalun limaa yuriid, facaalun limaa yuriid. talada gacantiisay ku jirtaa ilaahay. lilaahi alamru, ilaahay baa talada iska leh, dib iyo horay baa isagaa iska leh. cid la wadaagta maamulka iyo talada ma jirto subxaanahu wa tacaala. qofka muslimkahi waa og yahay midhkaas. waxaa dhici karaysa qofka muslimkahi mararka qaarkood in shayطaanku yaro mashquuliyo ilaa waa dhici karaysa, laakiin xaqiiqatan muslimku waa og yahay, waana garanaya. hadday arrintu sidaa tahay, wakhtigaa adagna lagu jiro, duruufta iyo xaaladduna ay sidaa tahay, waxaa lagama maarmaana qofka muslimka ahi ilaahay inuu ku dadaalo siduu ugu xidhnaan lahaa. inaad ku dadaashid ilaahay saad ugu xidhnaan lahayd, inaad ku dadaashid ilaahay sidaad ugu dhowaan lahayd, inaad ku dadaashid ilaahay saad u raaligelin lahayd. ma haddaad dhimanaysaa? ma hadhow baad dhimanaysaa? ma maalmaa kuu harsan? ma wakhti baa kuu harsan? waalcilmu cinda allaahi alkariim. sidaa awgeed waxaan isu dardaarmaynaa kasratu ducaa, ilaahay baryadiisa inaynu badinno, ilaahay inaynu aad u barinno subxaanahu wa tacaala. wax alla waxaynu doonayno gacantiisay ku jiraan. wax alla wixii wanaag ah oo aynu rabno, kii caafimaad raba ilaahay gacantiisu ku jira caafimaadku, kii awlaad raba ilaahay baa haya, kii cilmi raba ilaahay baa haya, kii roob raba ilaahay baa haya. wax kasta oo aynu rabno ilaahay gacantiisay ku jiraan. adduunkan isagaa iska leh, isagaa ka talinaya, isagaa maamula. cidaan isaga ahaynoo ka talinayso maamulaysaa ma jirto. wallaahi inaanay jirin, iyo billaah isagaa gacanta ku haya, isagaa ka talinaya, isagaa maamula. yudabbiru اlamra min aلsamaa'i ila alard. hadday arrintu sidaa tahay waad garanayso, waad xusuusan tahay, wax alla wixii aad ka baqaysana isagaa kaa badbaadin kara.
wax alla wixii aad ka baqayso isagaa kaa badbaadin kara. naar haddaad ka baqayso isagaa kaa badbaadinaya. gaajo haddaad ka baqayso isagaa kaa badbaadinaya. xanuun haddaad ka baqayso isagaa kaa badbaadinaya. col iyo cadow iyo colaad haddaad ka baqayso isagaa kaa badbaadinaya. il iyo af iyo xasad iyo shaytaan haddaad ka baqayso isagaa kaa badbaadinaya. fatawakkal cala allah, ilaahay tala saara. alaysa allaahu bikaafin cabdah, baryada ilahay inaad badiso. ilaahay markaasu wuxuu leeyahay waqaala rabbukum, alla isagaa iskaa baraya siduu ilaahay isku kaaya baraya. bal fiiri warooy dadow, rabbigiin wuxuu idin leeyahay oo alle uu yidhi udcuunii ibarya. war waa baahan tihiin, ibarya astajib lakum, waan idin ajiibayaa. ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. kuwa cibaadadayda iska weynaysiinaya oo baryadayda u horrayso jahannamay geli doonaan iyagoo dullaysan buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala. nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiiska tirmidi ee saxiixa ah, adducaa'u huwa alcibaadatu. cibaadaduba waa duco. cibaadaduba ducay ku soo ururtay. ilaahay inaad aada u bariso subxaanahu wa tacaala. baahanaad tahay, baahi adduun baad leedahay, baahi aakhiraad leedahay. alle isagaa hani ah. yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid. dad yahow baahanayaal baa tihiin, ilaahay baa u baahan tihiin, isagaa hani ah. baahidiina idin haysaa ma dhowa, waa badan tahay. yaa dabooli kara? ilaahay baa dabooli kara subxaanahu wa tacaala. isagaa xogogaal ku ah. bal eeg, waad baahan tahay, baahidaadii buu og yahay. baahidaada waxa daboolayuu og yahay. baahidaada waxa aad kaga baahi baxaysuu og yahay. isagaa gacanta ku haya. cid uu isagu u soo marayaa ma jirto. ciduu weydiinayaa ma jirto. ciduu kuugu dirayaa ma jirto. isagaa adiga ku leh. markaasuu ku leeyahay ibari, baryadayda waan ka aqbalaya. baryada waan kaa aqbalayaaye ibari. ilaahay inaynu barino subxaanahu wa tacaala. qofkaan ilaahay baryin alla waa necab yahay. xadiiska nebiga caddaynaya. nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi man lam yadcu allah, man lam yas'al illaah, riwaayad kalaa tiraahdo yaqdab calayh. ilaahay qofkaan baryin alle waa u caroodaa. abkhalu nnaas man bakhila biadducaa. dadka waxaa ugu bakhaylsan buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam qofka ilaahay baryadiisa quuri waaye ilaahay inuu baryo ka bakhayle. dadka kaasaa ugu bakhaylsan buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam. ilaahay baryadiisa badso. arkaanta baryadu 3 bay noqotaa. in wixii lagu siiyo judhiiba aad ilaahay weydiisatay. in dhib soo socday oo aadan ogayn ilaahay kaaga celiyo. in aakhiro lagugu kaydiyo. 3daasay noqotaa. haddaba hadday arrintu sidaa tahayd baryada iyo ducada waa badsanaynaa bay dhaheen saxaabadu. ilaahay wax bixintiisaa ka badan buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam. marka nebigu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamay ducada arkaanteedu inay 3 noqonayso. xadiidka laga fahmayo ducadii nebiyullaahi yuunus markuu badda kalluunku liqay ee badda lagu riday, laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. ducada markaad ilaahay baryayso tawxiid saafi a waynu qalbigaaga ku jira. waa inaadan cidna ku lamaanayn ilaahay ducadiisa. ilaahay sheekh hebelow, ilaahiyo awliye allaay ma jirto waxaas. keligii inaad bariso caqiido saafi ah. ilaahay inaad nasahdo oo wax alla wixii kamaala u sugto, wixii nusqaana ka hufto. dembigaaga inaad qirato, alictiraaf bidemb. ilaahay ducada waa kaa aqbalaya. walaalayaal ducada aynu badinno oo muslimiinta mid kastoo xanuunsanaya aan u ducayno. muslimiinta inta abaar haysata aynu u ducayno.
muslimiinta inta muraad le muraadkooda wacan alla inuu siiyo aan u ducayno ducada waasic ka dhig intaan awlaadayn awlaad alla inuu siiyo u ducee inta xabsiyada ku xiran alla inuu ka soo daayo u ducee inta daymaysan daynka alla inuu ka bixiyo u ducee inta baqdin iyo cabsi haysato alla inuu ka badbaadiyo u ducee inta awlaadooda ka waxaysantay ilaahay inuu u toosiyo u weydii inta xaasaskoodu ka waxaysmeen alla inuu u hagaajiyo weydii inta raggoodu xaasaska raggoodu ka waxaysmay in alla u toosiyo u weydii ilaahay subxaanahu watacaala intii ciddii wax ka dhinteen samir iyo iimaan allah ka siiya u weydii janno u weydii dembi dhaaf u weydii muslimiinta alla inuu u gargaaro u weydii khayr adduunya khayr aakhiro weydiiso waddankeenni ha loo duceeyo ummadda soomaali meelay joogto ilaahay inuu ururiyo walaalnimadoodii ilaahay subxaanahu watacaala ay walaalaha diinta iyo dhalashada islaamnimada ku ahaayeen ilaahay inuu u xoojiyo isu soo ururiyo meelay joogaan dal iyo dibadba ducee inta dibadda jirta diintoodii dadkooda iyagoo nabad qaba iyo caafimaadkooda iyo adduunkooda ilaahay inuu soo celiyo ducee dalkeenna ilaahay inuu hagaajiyo cadowga gudaha iyo cadowga dibaddaba alla inuu naga badbaadiyo sharafteena iyo karaamadeyna iyo cizadeena ilaahay inoo soo celiyo hala duceeyo ducaynu isku ognahay wixii aan khalda ilaahay baan ka toobad aqbalay ka toobad dalbaya inuu iga toobad aqbalo iga dhaafo wixii aan saxayna ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga abaalmariyo allahumma salli calaa muxamed asalaamu calaykum